waan islaam walaalayaal meel walba joogteen kusoo dhawaadashaan shalay ka aad badan soo aamintahay walaalo marka ugu horeysay markaan arkay koobkii oo shii ka banayso hawada iga soo dhacday waqtiga guriga iga soo dhacday anoo koobkii fiirinaya baa haddana magac iga soo qaaday walaahi bilaa farxad aad u weyn igu dhalis aad baan ku salaamay walaal waxaan kaloo aad uguma rabaa inaan ugu mahadceliyo inta commenti kasoo bixisay indhaha bararsan saa yeelo marka haddii la yidhahdo maanta kemistan aadaya suggestionkiina waxaad iisoo suggest gareesheen ayaan soo iibsanaya maanta ha shaati inaan dharka inaan iska bedelaad arkaysin odayga dharka ii keenay shalayto wuxuuna yiri koleyta inaad soo laabanayso waan ogsoonahay wakaas de dharka micnaheedu wuxuu ka wadaa igama maarintid camal ayuu ka wadaa waan arkaynaa waqtigaa taas sheegi doonto wax yar haddaan u yara galo magacyadii dadkan youtube leyda oo markaa ina wada haysato mar walba inugu dhagan donald trump isagoo madaxweyne oo awooddaas leh baa youtube-ka laga xiray facebooka laga xiray twitter-ka laga xiray wixii social media oo dhan uu hadalkiisa gaarsiin jiray laga xiray sababtee looga xirana waxay ahayd dadka wuxuu ka mid ahaa nacab abuurka oo nacab abuurka aada iyo aada u bulbuliyo marka waatii taariikhda aada ogeyseen aada ogeedeen 6 July miyay ahayd wixii ka dhacay maraykanka guriga cas guriga baarlamaanka ay imaadeen dadka marka dadkan isku haysto youtube-leyda isku haysto xoogaa adiga boqolaal kun markay helaan youtube inay heer sare yihiin saaxib donald trump baa laga xiray meel aad wax ka joogteen mala haddii youtube uu ka arko nacaab inaad bumbuuninayso mise qof noloshiisa halisku aada gelinayso taasoo horta waa midda kasoo horjeeda youtube-ka xagga haddaan ka gudbo shalayto ana wadada maraya waxaan arkay waxaa iga hormaaday odayga waagii hore on capetown degnaan jirin ayaan isnaqaanay wuxuu igu imaan jiray meeshii aan ka shaqeyn jiray maqaayad caan aan ka shaqeyn jiray ayuu igu imaan jiray on suuraysan jirnay marka alaa kulli xaal social media baraha bulshada soo galay ka bacdina meelahaas waxaan ka arkay waxaan u malay inuu iga arkay shalayta igu hormaaday anoo maask xiran indhahaygu aqoonsaday wuxuu yiri niyo waxay baraha bulshada aad ku wada mujoojisin mise weli waa tahay waan ahay aan dhahay weli wuxuu yiri niyo daawaan ku haya xabal sooda iyo malab intaad isku darsato cab wuxuu kaa dhaqayaa mise uu kaa tartirayaa dareenka aad leedahay marka haddii aan soomaalinahay horta waxaan aaminsana xabad inay daawo nooc walbaba ee tahay oo wax walba oo adiga xanuun aada u cabto loo cabi karo marka iyada ma ogsoonen marnaba iguma soo dhaadhicin in xabad soodada uu kaa baabi'inayo dareenka aan leenahay marka run ahaantii waan dareemi karaa taladiisi iyo kalsoonidu aniga ila rabo iyo waxyaalahaas oo dhan aada iyo aad aan dareemi karaa anigo aan hadal ku celin waxaan ku yiri waayahay waan fiirinaya waan isku tijaabinaya camal waanan tijaabinaya anigu weligeyga hadal haddii la ii sheego tala la isiiyo waan kasoo salgaaraa mamaxaad kii maanta haddaa idhaahdo shanta salaatuleyl tuko ilaahay uu kaa dhaafaya magacaadi uu kaa tirtiraya waan tukanayaa waan inaan kasoo solgaaray aad baan u jeclaa challenge haddii la isiiyo waan kasoo solgaaraya ya
markaan kasoo gaaro haddii aan wax aan ka garan waayo marka ayada faa'iido weyn ii tahay maogta aniga faa'iido weyn ii tahay sababta waan kasoo salgaaray qofkaas inuu miseba uu ku qaldanaa miseba uu si kale ka dhaadhacsanaad nafsadeeda markaan kasoo salgaaro umaan ka hadli karaa maogta marka xabasooda waan soo gadanaya malab waan soo gadanaya balsaana aragno inay dareenka marka adiga ugu jirto mise waan leeyahay uu iga tirtiri doono aad baad u mahadsantahay koleyto inuu arki doono ma maleynayo balse waanadaada waad ku mahadsan tahay koleyto si sharaf laa ila hadashay oo ii waanisay qof walaalana taas laga hela imu ataagareenin haddaa intuu ijoojiyo salaanta islaamay oo si sharaf leh oo sidii hore oon isku la hadli jirnay uu iila hadlay marka taas ayada darajo weyn ayay u tahay asaga xaggiisa sidana wanaagu ila hadla walaalayaal intaas nala soo wadaaga xabasoodana bil cabu yiri xabasoodadaas iyo malabka waan fiirinaya ayada waan isku tijaabinayaa waana arki doonaa waqti umaan wada joognaa samaha mideeda kale waxaan rabaa dadkana cudurka wuxuu kugu dhacay waa hawaarka hooyada iyo waxyaalahaas camal sababtaan rabo inaan ugu jawaabo horta waxay tahay aniga horta waxaan ahay qof aada iyo aada u duceysan maamada hooyaday koleyto markii ugu dambeysay markii ay oynayso waa markii kilixoon ka oysiyey maamada hooyaday intaas ka hore aada iyo aada lii yaqaanaa qof walba oo marka adiga gaaris waad wareysan kartaa aada iyo aada qof u duceysan oo markaan ii duceyn jiray ayaan ahay maamada hooyadana waxay dhihi jirtay muslim gaal inaan dhaha maro diinlaawena muluxud iyo muslim hooyo aabaan kaaga dhig run ahaantii taasna waan arkay ducadaasna waan arkay qof walba oon aan barto ma qaalisaan kusoo jiito qofkii waxaan halkaas igu dhegdhegan oo waan isweydiiyaa waxaan dhaha maxaad adiga igu jeclaanaysaa mise waad sababta adiga aad i caawinaysa maxay tahay taas waan ka yaab horaan uga yaab marka qof walba oon barto ajanabi ha ahaado soomaali ha ahaado run ahaantii aada iyo aad ay ixtiraamaan una rabaan aniga inay caawiyaan taasna waa ducada hooyadeed oo ay ii duceysay marka walaal habaar ma qabo aniga qof duceysanaan ahay dee maamadana waan isfahmi waayno waxaan isku fahmi waynay aniga waxaan ahay hooyo saasan ahay waan ku dhashay waa adiga igu dhalay intaas iyaan isku fahmi waynay af soomaaliga iyo dhaqan ahaan aad baan u fahmi karaa oo aniga dareenkeeda aada iyo aad ay u fahamsana dadka dariska oo xamanaya iyo wadadaas ay maraysa iyada markaa dareemaysa caab wadada la mari laadahay iyo dhaqankeen iyo diintii iyo aada iyo aada u dareenta marnabana igama dhaadhaceyso masebo marawi inaan ka dhaadhiciyo hooyo anigaa saxsan ilaan ayadana way saxsan tahay aniguna waan isla saxsan yahay koleyt waxaan dareemayaa mise waan ogsoonahay waxaan ku dhashay inaan wax ku dhasha aan ahay oo marnaba waxaan iska bedeli kara ilaan horaan usoo daalay masaajid galay salaatuleel tukaday ilaahay bariyey soomay ooyey taraawix waxaan u tukaday aabahayga xilliguu dhintay ayaan garanaya xuskiis ayaan taraawix intaan tukaday aan u ooyey inuu dareenka ilaa iga qaado koleyto hadalkaydaas kusoo gogeynaha inaan ugu dheeraan awmaan ma leedin saak maxaad ku hadli doontaa koleyto hadalka mogta hadal buu dhaliyay soomaali tiri hore hadal usoo dhamaysa marka waan islaama walaalayaal shaqaraadis ayaan sii galayaa till next time bye